السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبن السلام يا جودهان أصحابتك وحرن كنالك لين إنجليش with حسن. مقعيقو وحسن عبد الله حسين. maanta waxaan idin wadaa cashar aad u xiiso badan oo ku saabsan sida hortaada ka muuqataba xanta haddii qof kuu yimaado ama maanta kadib ma dhagaysan doontid xan haddii aad muuqaalkan dhammaysato waxaan halkan kula wadaagi doonaa su'aalo muhiim ah oo aad weydiin doonto qofkii doonaya inuu qof kale hadal ku saabsan kuu sheego intaas ayuu ku saabsanaan doonaa cashirka like gareeya si algorithmka uu caawiyo subscribe-na dheh kanaalka haddii aadan hore u dhihin waa mahadsantiin. Before you listen, ka hor inta aadan dhegaysan to gossip xan, watch this video, daawo muuqaalkan. Gossip xantu spreads waxay u faaftaa like anything, sida waxa waliba shay walba oo maanta faafa intuu faafa ayay faaftaa xantu. Tusaale, someone qof ayaa came to you adiga ku yimiday and gossiped waxa uuna xantay about another person shakhsi kale waxyaaba ku saabsan ayuu kugu xantay and you form it waxaadna ka dhigatay ama aad ka samaysatay an opinion fikrad about that person waxyaabihii shakhsigaas ku saabsanay. You didn't check ma aadan hubin whether haddii it is right ay saxan tahay. You didn't check ma aadan hubin whether it is wrong haddii ay khaldan tahay waxaani ma khalad ba mise waa sax maba aadan hubin ba. You didn't bother ma aadan isku dhibin to verify in aad hubiso because maxaa yeelay you hear waxaad ka maqlaysaa from someone else qof kale ayaad ka maqlaysaa yacni qof kale hadalkan kuu sheegaya iskuma dhibaysid oo waqti ma gelinaysid qofkani wuxuu sheegayo ma sax ba mise waa khalad waana arrin mushkilo ah. If a person haddii shakhsi come to you uu ku yimaado and say una dhaho I wanted to tell you waxaan doonayaa inaan kuu sheego something about wax ku saabsan your friend saaxiibka haddii qofku yidhaahdo hadalkaas maxaad leedahay طبعا ii sheeg baad leedahay hadhihin please fadlan ask weydii that person shakhsigaasi these questions su'aalahan soo socdo maanta halkan aan kugula wadaagi doono weydii ii sheeg horaha ka dhihine kow whatever wax walba oo you want aad doonayso to tell me in aad iiga sheegto about my friend saaxiibkay is it good ma wanaagsan yihiin or bad mise waa xun yihiin su'aashaas weydii walaale. If he answers haddii uu ku jawaabo it is bad waa wax xun hadduu kugu jawaabo say to him ku dheh I don't want ma doonayo to listen in aan dhagaysto. badankan haddii qof noo yimaado yidhaahdo warniyow ninka hebel ahaa ama gabadhii heblaaya ahayd baan arrinkaaga wadaa war ii sheeg bal niyow ayaantaan wax war ii sheega waa la waaye marka intaas waa kaftan hadhihin weydii su'aashan. waxaa kaloo aad leedahay whatever you want wax waliba oo aad doonayso to tell me about my friend in aad iiga sheegto saaxiibkay is it true or false ma runba mise waa been kowdii ma wax wanaagsanaa mise waa wax xunaad weydiis haddana waxaad weydiinaysaa ma saxba mise waa been. If he answers haddii uu ku jawaabo I have not sure ma hubo hadduu kugu jawaabo waxaani wax aan hubo maahan say to him ku dheh don't tell me ha ii sheegin. su'aasha saddexaad whatever you want wax waliba oo aad doonayso to tell me about my friend inaad iiga sheegto saaxiibkay is it beneficial ma wax faa'iido lehba or not beneficial to me or not beneficial ama wax aan faa'iido u lahayn to me aniga and my friend iyo saaxiibkay saaxiibkay aad doonayso inaad hadalkan iiga sheegto ma wax isaga iyo anigaba faa'iido noogu jidhaa. If he replies haddii uu ku jawaabo it's not beneficial wax faa'iida maahan say to him ku dheh go away from me iga fogow ku dheh go away from me iga durug ama iga tag ayaa loola jeedaa. I don't want ma doonayo to hear inaan maqlee. Ladies and gentlemen mudanayaal iyo marwooyin use isticmaal these three questions saddexdan su'aal ee aan kula wadaagay please u isticmaal qofkii uu doonaya inuu qof kale hadal kaaga sheego. Three filter tests baa loo yaqaanaa waa la filter gareeyaa hadalka yacni tusaale caanaha ama burkoo kale markii baadiyaha la joogo burka waxaa bahala yaryar baa gala burkii ma la tuuraa may geed yaroo shabaqa baa lagu shubaa
kadibna filter baa la marsiinaa kadibna bur nadiif ah halkaa laga soo saaraya. So warka haddii aadan warkii lagu sheegay haddaad iska dhegaysato waxaad la mid tahay adigoo burkii adigoon aan shabaqi marsinin intaad qastay canjeeradii oo bahala aad dubto sidaa bay u dhigantaa. So filter iska marsi warka qofkan uu kuu sheegayo. su'aalaha aan kula wadaagay waan kuugu soo celinayaa. When someone comes to tell you, markii qof uu kula yimaado inuu kuu sheego something about someone else, wax ku saabsan qof kale, fadlan saddexdan su'aal weydii. 1 2 3 weydii. Is it good or bad? ma wax wanaagsan baa mise wax xun? If it's bad, hadday xun tahay, don't bother, ha isku dhibin to give inaad siiso your ears, dhegahaaga inaad siiso fadlan ha isku dhibin. Is it false or true? ma saxba mise waa ma beenba mise waa run? If it's false, haddii ay false tahay ama been tahay, don't listen, ha dhegaysan, beentu aad bay u faafid badan tahay. Is it beneficial or not beneficial? ma wax faa'iido lehba mise wax aan faa'iido lahayn? If it's beneficial, hadday faa'iido leedahay, listen, dhegayso. If it's not beneficial, haddii aysan faa'iido lahayna, it's gossip, waa xan ee ha dhegaysanin. waxaan rajaynayaa inay aad kuu anfacdo. marka hal mar ayaan dul marayaa anigoo akhrinaya oo aan macnaynaynin. Okay. Before you listen to gossip, watch this video. Gossip spreads like anything. When someone came to you and gossiped about another person, and you formed an opinion about that person, you didn't check whether it's right. You didn't check whether it's wrong. You didn't bother to verify because you hear from someone else. If a person come to you and say, I wanted to tell you something about your friend, please ask that person these questions. 1. Whatever you wanted to tell me about my friend, is it good or bad? If he answers, it's bad, say to him, I don't want to listen. Okay. 2. Whatever you wanted to tell me about my friend, is it true or false? If he answers, I am not sure, say to him, don't tell me. Whatever you wanted to tell me about my friend, is it beneficial or not beneficial to me and my friend? If he replies, it's not beneficial, say to him, go away from me, I don't want you to hear. Ladies and gentlemen, use these 3 questions. When someone comes to tell you something about someone else, 1. Is it good or bad? If it's bad, don't bother to give your ears. Is it false or true? If it's false, don't listen. Is it beneficial or not beneficial? If it's beneficial, listen. If it's not beneficial, it's gossip. So that's our lesson for today. I hope you enjoyed this video. Until the next video, bye bye.